mudanayaasha golaha guurta Somaliland ayaa maanta cod duuduuba ku ansixiyay xeerka guud ee doorashooyinka qaranka iyo diiwaangelinta codbixiyayaasha fadhigan ay mudanayaashu xeerkaasi ku ansixinayeen waxa shir gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha guurta Somaliland Saciid Jaamac Cali waxa ka soo xaadiray fadhigan 53 mudane markii uu fadhigaasi furay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ayaa waxa uu mudanayaasha u soo jeediyay in ay ka doodaan xeerka guud ee doorashooyinka qaranka iyo diiwaangelinta codbixiyayaasha balse markii ay mikrofoonka qabsadeen xildhibaano kamid ah golaha guurtidu ayaa waxay soo jeediyeen in si lagu ansixiyo xeer ka wanaagsan oo saa uga soo shaqeeyeen ma aan arag marka waxaan leedahay war aan sidiisa ku sii deyno sidiisa ay nagu dhaafo dalkuna doorasho ha galo in badan baynu rafannay war dalku doorasho ha galo oo doorashada ayaa waxba inaga laga saari xeer dib u dhacaynaya inaan inagu shaqo ku yeynaan ku milmin haddaan xeerkan ka hadlo xeerka guud ee doorashooyinka qaranka iyo diiwaangelinta codbixiyayaasha oo maanta doorashooyinkii oo dhan iyo wixii la halmaala la iskaga dhigay hal buug oo maalin wala oo shaqada lagu qabanayo maadaama xeer 2-3 sanadood uu ku jiray golaha wakiilada iyo xagga ka soo rafanayay maanta waa u guurguurtida golaha amba aqalka sare baarlamaanku inuu 2 cisho gudahood ku soo gabagabeeyo marka xeerkuna aad buu qurux badan yahay uu wanaagsan waxyaalihii aan markii horeba ka digtoonaana golaha wakiilada ayaa ka saaray iyagoo muddo dheer haystay marka guurtida maanta waxa uu sharafa inay xeerka sidiisii ku sii daayaan si doorashooyinku u qabsoomaan ayaan anigu codsanayaa in sidaa lagu sii daayo aad iyo aad buu xeerkan u wanaagsan yahay si wanaagsan baa looga soo shaqeeyay maadaama in badan la sugayay in dalka doorasho ka dhacdo waxaan soo jeedin lahaa in xeerkaas sidiisa loogu codeeyo si hawlaha qaranka loogu qabto baankiga horeeyay ka hadaljiba golaha wakiilada ayaa si fiican uga soo shaqeeyay ka baaraan degay waana xeer muhiimadiisa leh loo baahan yahay inuu si fiican oo dhaqso ah u dhaqan galo in badanna soo jiitamayay marka waxaan soo jeedinayaa sida xildhibaankii horeeyay soo jeediyaba inaynu xeerka cod gelino isla maanta sidaasaan ku ansixin wixii turxaan ku jirayna waa laga saaray dalkuna iyo dadkuna aad buu ugu baahan yahay doorashada in la galana diyaar baynu u nahay oo kaabigayna soo saartay waxaan soo jeedinayaa xeerka in cod la geliyo oo sidiisa lagu ansixiyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha guurta Somaliland Saciid Jaamac Cali ayaa waxa uu cod geliyay xeerka guud ee doorashooyinka qaranka iyo diiwaangelinta codbixiyayaasha waxaanay u dhacday codaynta xeerkaasi sida tan waa xeerka guud ee doorashooyinka qaranka iyo diiwaangelinta codbixiyayaasha xeer number 91/2020 in sidiisa lagu sii daayo inta golay gacanta hala jooga ma yaa diidan waxa weeyaan 53 xubnood baa fadhiya waxa ogolaaday xeerka in sidiisa lagu sii daayo 49 mudane waxa diiday 2 mudane waxa ka aamusay 1 mudane gudoomiyuhuna ma codayn xeerka guud ee doorashooyinka qaranka iyo diiwaangelinta codbixiyayaasha xeer number 91/2020 sidaas ku ansaxay intaasi kadib gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha guurta Somaliland ayaa waxa uu mudanayaasha ku wargeliyay in ay galaan fasax 45 casho ah oo ka bilaabmi doona maalinta bariya waa xusid kan fadhigii 17aad maanta oo salaasa bisha Oktoobar 6 buu inoo xidhan yahay 45 casho ayaa fasax inoo yahay sidaa ay salaamaad iyo farxad fiican iyo soo loo korantay waa xusid mudan xeerkan ay duuduubka ku ansixiyeen mudanayaasha golaha guurta Somaliland ayaa waxa uu ka soo gudbay golaha wakiilada Somaliland oo muddo badan iyagu rogrogay isla markaasina soo ansixiyay xeerkan ayaa u gudbi doona madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi